صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waa barnaamijkeenii duruus ramadaaniya, waa xalaqadii 24aad. xalaqaadta waxaan kaga hadli doonaa fadliga ay iska leedahay laylatul qadriga. xalaqadan waxaan kaga hadli doonaa fadl laylatul qadri, habeenka la laylatul qadriga iyo fadligiisa ayaan kaga hadli doonaa. habeenkan inuu qiimo uu leeyahay oo fadli uu leeyahay إلهي سبحانه وتعالى إنه الشيء إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. هبين كان سجأة وهبين محوها آدياد قيمة بدن. هبين كاسو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسو سود الجين. هبين كاسو إلهي وكتل مامي إنه كخير بديها كن بلوت. markii kun bilood xisaab ahaan la isku celceliyo waa 83 sano iyo 4 bilood. marka waxaad dareemi kartaa in muxuu ahaa in ay tahay habeen aad iyo aad u qiimo badan la rabana qofka muslimka inuu ku dadaalo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha ummadan ugu naxariistay ayna ka mid tahay maadaama cumrigeedu uu yahay cumri aad iyo aad u gaaban, maadaama uu yahay ilaahay wuxuu ugu naxariistay habeenkan isaga ah. maxay la ummadii inaga horeeyay oo inaga cumri dheeraayeen oo inaga awood badnaayeen, hase yeeshee ummadan muxamadiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu gargaaray habeenkan isaga qaaliga ah. habeenkan waa habeen aad iyo habeen barakeysan sida ilaahay quraankiisa uu ku yiri inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka. laylat mubaaraka hiya laylatul qadr. habeenka barakeysan waa habeenka laylatul qadr. fadliga waxa kamid habeenkan uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaraa arsaaqdii dadka ajashoodii. waa habeen qorshe sanadeedka ee muxuu ahaa la sameeyo habeenka isaga ah. fiiha yufraqu kullu amrin hakim. marka waa habeen sidaas oo ilaahay wax uu muxuu ahaa uu kala dabaray oo malaa'iktii acmaashi loo kala qaybinayo waa habeenka isaga ah. sidoo kale fadligiisa waxa kamid habeenkan in malaa'iktii ilaahay ay soo deganayso waliba malakul jibriil uu ku jiro sida ilaahay quraankiisa uu ku leeyahay tanazzalul malaa'ikatu war ruuh. malaa'ikta ilaahayna way soo deganaysaa si gaar ah waxa malakul jibriil uu soo deganaya. waxa kamid soo kale habeenkan fadliga iyo qiimaha uu iska leeyahay waa habeen muxuu ahaa aysan wax dhib ah uusan jirin iyo shar midnaba ayna jirin sida ilaahay uu sheegay habeen nabadgelyo inay tahay. ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala salaamun hiya hatta madlac al-fajr. ilaa fajrka laga gaaro habeenkan waa habeen degan oo nabadgelyo iyo xasilooni ay jirto. fadaaishiisa soo kale habeenkan waxa kamid in muxuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii habeenka waafaqay inuu dambigiisa ilaahay u deynay sida xadiiska rasuulku alayhi salaatu wasalaam man qaama laylatul qadr iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. nabiga wuxuu alayhi salaatu wasalaam habeenka isaga qofkii istaaga isagoo ilaahay u ajr xisaabsanay dambigiisa hor ilaahay u daaya. marka dambiyada laga hadlay waa dambiyada muxuu ahaa sagaa'iru dhunuub, laakiin dambiyada muxuu ahaa waaweyn muxuu ahaa tawba u baahan, laakiin dambiyada yar aad soo gashay waxaas oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku deynaya. marka habeenkan waa habeen qiimo badan oo aad iyo aad qaali u ah. marka habeenkan cidii aan waafaqin waa cid ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan khayr la doonin sida xadiiska rasuulku alayhi salaam uu yiri man xurima khayraha faqad xurima alkhayra kullah. wuxuu leeyahay alayhi salaam qofkii habeenka isaga ah yani khayrkiisa laga xarimo waa cid ilaahay khayr oo dhan ilaahay uu ka xarimo. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in habeenka isaga ilaahay uu na waafajiyo oo dadka ka faa'iideysta ilaahay nagu daro. wajazaakumullahu khayr. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.